tahay in la hubiyo tirada iyo tayada shaqaalaha. waxaa maanta marti noo ah tiim uu hogaaminayo agaasimaha shaqada shaqaalaha ee wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo tiim technical oo ka kooban wasaaradda maaliyadda shaqada shaqaalaha iyo guddiga shaqaalaha rayidka ah. waxay naga caawin doonaan in aan ku guuleysano in shaqaalaha ka shaqeeya gobolka Banaadir in tiradooda saxda ah iyo tayadooda la ogaado hadii la yiraahdo. waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo muddada hawshan ay socoto in qof kasta oo ka mid ah shaqaalaha gobolku uu iska saaro waajib uu yimaado xilliga loogu talagalay isdiiwaan geliyo laga qaado biometric data-dii ama fingerprint laga qaado ciddii aan imaanin waqtiga loo igmaday waa 4 maalmood hadii la yiraahdo shaqaale nooma noqon doono. muddadaas ciddii uu ku dhaafo hadii la yiraahdo nooma noqon doono shaqaale hadii la yiraahdo. marka waxaan idinku wada daarmaa hadii la yiraahdo in dhammaantiin aad isu xilqaantaan in aad timaadaan waqtigii lidii qoondeeyay hadii la yiraahdo. marka waxaan rajaynaynaa in 4 maalmood kadib aan heli doono shaqaale tiradiisu ay sax tahay, shaqaale la haayo xogtooda saxda ah, shaqaale la yaqaano qaybtu ka shaqeeyo, shaqaale la og yahay nambarka shaqaalnimo uu leeyahay. haddaan ay ka maamulka gobolka Banaadir ahaan muddan soo waday inaan samayno reform waa ku soo guuleysanay inaan ogaano tirada saxda ah ee noo shaqeysa. tan waxay naga sii caawinay inaan mar labaad hubino in aan ognahay shaqaalaha noo shaqeeya tiradooda saxda ah. waxaan qabnay marka hore dareen ah inay jiraan shaqaale noo qoran laakiin aan noo shaqeyn maadaama gobolku aad u weyn yahay muddo fogna soo shaqeynaya. maanta waxaan insha Allah rajaynaynaa 4 maalmood kadib markay soo dhamaato inaan helno xog aan ku gaari karno go'aan sax. shaqaalaha tayadooda aad ay muhiim noogu tahay. ma rabno shaqaale iska qoran oo waxna qaban oo xasaar lahayn laakiin anaguna aan mushaar siino. waxaan u baahanahay shaqaale tayo leh contribution ku yeesha horumarka gobolka aan rabno inaan gaarsiino hadii la yiraahdo. hadda waxaan joognaa muddo 12 bilood sanad noo dhamaan raba. waxaan rajaynayaa sanadkan cusub inaan la nimaado isbedel ka duwan sanadkan soo dhamaado. marka waxaan rajaynayaa qof walba inuu diyaar garoobo ma jiri doonto qof iska qoran oo aan wax haba yaraatay contribution ku lahayn horumarka gobolka. gobolku maaha meel charity oo sadaqad laga qaato noqon doono. qof kasta wax soo saarkiisa ayuu wax ka heli doonaa. waxaan wadnaa oo aan soo bandhigi doonaa hadii la yiraahdo in shaqaalaheenu ma lahayn salary scale si dowladda dhexe u leedahay oo grade A B C ma lahayn. laakiin bishaan waxaan ku guuleysanay inaan samayno inaan shaqaalaheena dib u habayno ogaano qof kasta title-kiisa aqoontiisa booshu ka shaqeeyo iyo mushaarka saxda uu leeyahay. taas waxay noo fududaynay ka maamul ahaan in 10 shaqaale oo isku meel ka shaqeysa oo kala mushaarkooda kala sareeyo ogaa institution ma fiicna. laakiin taas maanta waan ka soo gudubnay waqtiga uu qaadatay. insha Allah waxaan rajaynaynaa anaga ka maamul ahaan waa dadaalaynaa idinkuna la imaado dadaal. marka insha Allah waxaan rajaynayaa guul tiimka martida noo waxaan rajaynayaa in loo fududeyn doono howlaha ay noo qaban doonaan hadii la yiraahdo. ugu mahadsantiin.